dhimaanaye dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhiiranaya Puntland Day waa munaasabad aad u qaaliya waa maalin kale waa maalin aad markaad magaceeda sheegaysid waa 1 August aan lagu talagelin inaad fadhi ku maamuusid ama ku sheegtid inaad istaagtay waajib kugu tahay waa maalintii la aasaasay Puntland waa sanad guuradii 25aad waa Puntland qaangaar ah waa Puntland u dhaqaaqday maanta dimuqraadiyad waa Puntland aan laga filanayn annagoo og ciidamadii ka dagaalamay jiray inay furimaha jiida hore ee SSC joogaan ama khaatumo ay joogaan haddana laga filayn awood intaan la eg baa ciidani soo bandhigaya ninna maankiisa ma gelinayn balse waa guusgooyo kale oo cadawgu maanta arkay muuse maanta waa qoostay sida la sheegay waa ciidamo waa intaan oo kayd u ahayd Puntland oo uu sii haystay waxaan leeyahay shacab weynaha reer Puntland sanad guuro wacan sanadkiisa ilaahay khayr iyo baraka idin gaarsiiyo ilaahay waxaad haysataan Allah idin nimceeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa u mahad celinayaa dadaalka iyo juhdiga ay gasheen ciidamadan iyo awoodda ay soo bandhigeen waxaan ka baqayay intay waxay soo bandhigaan waayaan in haddii alla ku rooyay ciidamadii furin bay jiraane awooddan aanta aniga ayuuba oo anna igu xogaalsanayn awoodda noocaana inuu sicid sii hayo ma filayn waa igu noqoto waxaan islahaa sidii Muuse Biixi ama jamhuuriyadda barida ayuu diyaaradaha caruurta ku alaadayda caruurta ku ciyaadaan ayuu soo saari doonaa gaari waala dhihi doonaa Puntland daroon bay samaysato dhaqaaqday waxaa sameyn tuubooyin musaari doona tuubooyinka bulaacadaha suuriyash musaari doona wala laakiin ma sha Allah ma inaan dad aan waxba haysan ku sii tiqtiqsado xasha wajuude xaaja rageed ma laakiin waxaan leeyahay Puntland inaba caadi maaha awoodeeduna awood la xaqiri kara ma geeska Afrika marka la joogo madaxweynaha ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka waxaan leeyahay wixii la idin diray waad soo dhamaanteed waa soo afmeedeen hadday dimuqraadiyad noqotay iyo hadday sharci dejin noqotay intaba hadda kaliya waxaa idin dhiman ciidankan iyo awooddan haysaan oo aad sii radhaan laftigiinu guudhaan oo halkaa iyo walaalihiin SSC aad maalmo halkaa ka soo qodaysaano la soo joogtaano jawiga soo bedelataano maamulka maanta loo dhisay oo guddoomiyihii baarlamaanka maanta la doortay waxaan u meenayaa ayadana qodobada waa ku qaada dhigi doonaa guddoomiyihii baarlamaanka SSC ama khaatumo ayaa maanta la doortay birina doorashada waxa dhici doonta tii madaxweynaha dhici doonta SSC ama khaatumo nin ku sii laaloolayay inay dad u afduubnaatahay tagtay oo tilaabsatay laftigadu maanta guddoonkii baarlamaanka la doortay birina waxaa la dooran doonaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii maantana waxaa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii baa la doortay ayagana reer SSCna waxaan leeyahay oo anigu aan ka mid ahay anaa soo hambalyeenayo hambalyaan leeyahay reer Puntland waxaan leeyahay markii Puntland la joogo madaxda Puntland sida aan xaqiiqada ognahay madaxweyne kasta oo Puntland yimaada ama tartamayahay wuxuu oran jiray kow Puntland waxaan gaarsiin doonaa dimuqraadiyad waa qodobka campaign marka lagu jiro labo sool sanaag iyo caynna waa soo qaban doonaa sool sanaag iyo cayn dadkii lahaabaa horeysto qabsaday khayr Allah in siiyo horta halka dhiga campaign dambe lagu geli maayo
كامبين دمبي نو حاسو هري ديمقراطية غوكي دني بقى غضب كان اسم المريي او ديمقراطية دي حارتو هالكا dhigtay nin kastoo tartamaya waa Puntland ninka u tartamaya Puntland awoodana ninka u tartamaya waxaan ku bogaadinayaa oo aan leeyahay walaalkayow waxyaalo kale daruusadii hore xagga iska dhigo waxaad loolan ku gashaa caafimaadka waxbarashada halka loolan iyo hadii la ku roy kaambeyn lagu galo wax dambe oo baalkii ma harin Puntland waxaan leeyahay dabaaldegeeda maanta aad buu cajabiyay runaantii 1 August oo maanta aad bay uga duwaneyd kuwii hore dhacay bal iska daa 1 August waxay ka duwaneyd ama ka xamaasad badnayd 1 Luulyo oo Soomaali weyn ay wadaagto ayay banaan dhigtay meediyaha maanta markaa fudhid wax kale laga hadlay sababtoo ah dadku wax aysan aaminsanayn baa jiray Siciid Dani ama beelaha hartiyeed oo aan ognahay awoodoodii inay halka geeyeen oo dagaal ku socdo ayaa hadana intaanay u sii laabnayd qof ku naaloonayay ama aaminsan ama jirin Muuse maanta yaabay wuxuu yiri war ciidankii aan gooja cad isku haynay miyaa guurayo garowe ka dabaaldegay Saleemay bartii bay fadhiyaan madaafiic soo tuurayaan oo maxay ahaayeen waxaan waa wuxuu Dani wato ciidankii Dani weeyo hadii aan la ku rooyay qolihii Muuse lacagta siinay qolihii Xasan lacagta siinay qolihii garowe ku dharbaaxaysay weeyo oo ma waxaan hubo oo maxay waaleen lacagta iga dhameeyaan qoliyaha jacaylaan baashay lahaayeen bi meesha ninka waxayni karna haduu waxaan garowe la xafaliyay in diin cand Allah islaam madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay waxaad maanta noo soo bandhigteen ummadda reer Puntland abaal baa u gashay runtii waxaad tusteen awoodda reer Puntland baa tusteen maanta munaasabadu waxay gooni noogu sii ahayd xashxashka iyo hadii aad qumqumka iyo dadku awoodda aad soo bandhigteen ee aan la filanayn taasa waxay noqotay ama kaag iyo fajac noqotay taasa baraha bulshada wax ka noqotay waxaan caadi ka noqotay mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay reer Puntland 1 August waxaan leeyahay fariinta isgaarsiiya Puntland dhiman mayso Puntland dad baa dhiig u shubay halka soo gaarsiiyay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u ducaynayaa idinkana ka qosanaya ducaysaan aasayaashii Puntland Abdullahi Yusuf Allah u naxariisto madaxdii soo madhay Adam Muuse Allah u naxariisto madaxdii soo madhay hadii alla ku rooyahay faroole waa noolyahay wax loo duceeyay ma reehoolay kaasi wax loo ducayn kara ma khayr lama siiyo wax loo ducayn kara ma wuxuuna badan nooga daran iyo intii kale madaxda Puntland inta dhimatay Allah u naxariisto maxaa Cabdi Xaashi Allah u naxariisto madaxdii Puntland soo madho dhan dhamaantood inta dhimatay Allah u naxariisto kuwa noolna Allah karaameeyo intaas aan leeyahay idinka ducayda kan yihiin u duceeya Puntland midnimadeedana deeqda Puntland quruxdaana deeqda hal midaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka labada u sheegaya Puntland taan quruxda badan muhiim aha ciidamo awood waxa soo dhan laakiin waxa muhiim ah dadka midnimadooda muhiim ah dimuqraadiyadda aad ku weydiidanaa naga horleexiseen ummadana aad gacanta u geliseen taasa muhiim ah waana idinkaga mahadcelinayaa aniga shacabka Soomaaliyeedba waxaan leeyahay Puntland nabada Puntland israacsan waa Soomaali nabada hooyadii Soomaaliya weeye ku daya Puntland baan leeyahay dadka hadii la ku reey kuwii caagadaha iyo isaarsaaranaya baalkan waxaan leeyahay war iska dhigo reality-ga hal Suleymaan madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaan wax kale idima dhimana waa soo afmeedeen Puntland shaqada aan ka idmanay hadday dimuqraadiyad noqoto iyo hadday sharci adkay noqotaba inta waa idkaayna waxa kale kaga baahanay maanta waxa la waxaad haysaan inaad SSC ugu hiilisaan oo gurub istaagada madaxweyne mid kale ka sii codsanaya waxa ka sii codsanaya inaad u guntatid dhismaha iyo dhidibba u taaganka SSC si loo dhisi lahaa madaxweyne waxa ka codsanaya sida adiga madaxdii ka horeysay sida ay u garab istaageen dhismihii Jubaland u garab istaageen maanta waa inaan u garab istaagnaa dhismaha SSC waa inaan u garab istaagnaa hadday cudud noqoto hadday dhaqaale noqoto iyo hadday siyaasad noqoto intaas madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka aan ka codsanayaa aad baan idin salaamayaa
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.